markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisii isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nabigay ku yidhaahdeen nabi allow magaalada maka annaku aan ka imanayn ka soo baxnay maa u zamzam baan ku haysanno iib ma ahayn halkan biyuhu waa iib magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysanno marka ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabataydi muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyaayo reerkayga ayaan ku biiliyaa markaabuu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku bedilo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuthmaan binu cafaan radia allaahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni iljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaabuu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuthmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa yidhahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiiyeen 30,000 oo dirham cuthmaan lacagtiibuu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka yidhi uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ceelkii bi'ru rooma haddii aan keeno ishii jannada ku taallay ninkaa loo ballan qaado iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaabuu nebigu yidhi haa markaabuu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf buu u yahay ha dhaansadaan buu yidhi ceelka haddooto biyihiisa waa waqaf hal isticmaala buu rasuul allah yidhi markaabuu nebigu farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahow raalli baan ka noqdee raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduuna samaynba intaabuu jannada ku galay buu rasuulku yidhi bicniihi bicayni iljanna indheergarata dadkaas ahaa soo maha ya mise siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu odhan indheergarata weeyaanoo 50 sanee soo socda isbeddelka geeska afrika ka faalloodaay dhegaysta idaacad intoo la soo fadhiisiiyo yaa allah caqliga aakhirada ku tusini waaya caqli maaha nolosha dambe caqliga kuu jeedin waaya caqli maaha araggu haddaad aakhirada ku arki weydo ood ku xisaabtami weydo arag saxa maaha janno hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halkaaba iska dhigayeen marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqada bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno ninbaa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid haa jannaad doonaysa haa jannaan doonayaa nebi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaan nool ma iyadoo kaa raalliyaa timiday mise iyadoo safarkaaga aan raalli ka ahayn ma iyadoo ooyeysaan ka imiday markaa buu nebigu uhi sow janno uma socotid haa hooyadaa ku noqo lugteeda qabso halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu yahay ilzim rijlayha uma aljanna buu nebigu uma aljanna lugteeda qabso jannada halkaa baad ka geli daacadda ilaahay markaad gudanayso waxaad ishordhigaysaa waa janno macsi markay naftiiyo shaydaanku kuugu yeedhaan ee shaydaanka iyo naftu ay ku yidhahdaan ilaahay caas oo dembiga samee oo waxaa ku dhac markay naftiiyo shaydaanku ku yidhaahdiin waa inaad ishordhigtaa ilaahay cadhadiisa ishordhig ina batsha rabbika la shadiid ina rabbaka labil mirsad ilaahay ku xisaabtin cadhadiisa ka cabsiye naftaada markaas marka labadaasaa la doonaya ilaahay inaan ku caabudno tamacan khawfan wa tamaca cabsi iyo rajo cabsida goormaa la rabaa waa intaad caafimaadka haysid eed nolosha haysid ee dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaaddo ilaahay raxmadiisa raje markaas oo ha quusan oo waxaad tidhaahdaa naftaada waxaad ku tidhaahdaa rabbigay waa naxariis badane waa deeqsi badane waa kariim weeyaan ilaahay waa kariim kaad la shaqaynayso waa kariim sidii ninkii
xajka u socday mar alle markuu ihraamkii u xidhay ayuu maqlay ayuu yidhi labayk allaahuma labayk markaa dushiisaa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayk xajka aad u socoto lagaama aqbalin safarkaa aad u xamaan qaadatayna ilaahay kaa aqbali maayo iska joog hadal baa dusha kale dhawaaq mid isaga gadaashiisa joogaa hadalkii la maqashiiyey kii baa ku yidhi yaa sheekh maxaad ka xajin adigu labayk allaahuma labayk markaad tirahdaba jawaabta maad maqlayn markaa ui maad maqashay haa waan maqlay haddaad maqashay haa haddaan maqlay wuxuu idhi 27 sano ayaan ilaahay gurigiisa u soo qasday mar haliya markaan xajka aanu ixraamka soo xidho ee talbiyadda soo bilaababa laa labayka walaa sacdayk baa layleeyahay oo waxaa dushayda laga leeyahay xajkaaga cimradaada sacigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay kaa aqbali maayo baa layleeyahay ee iska joog baa layleeyahe haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaggiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xaggee kalo oon tagaa balii sheeg buuhi adaan tala kaa qaadana balii sheeg buu ka yidhi may jirtaa meel kale wuxuu yidhi ama hal lay aqbalo ama yaan lay aqbalin anu ilaahay baan u socdaa xaggiisa buuhi meel kale uma socdo ka quusan maayo ilaahay raxmaddiisa waa kariim waa raxiim waa raxmaan waa xaliim waa sataar ceebteedno dhan buu qarinaya maanta dulqaad badane war ma cadaaladda ilaahay baan ku joogna adduunyada baa la yidhi satriga iyo dulqaadka ilaahay baan ku joognaa satr asturkiisa ilaahay baan na asturaya ilaahay baa noo dulqaadanaya laakiin haddii cadaalad la eegi lahaa acmaasha jidhkeenna maanta ka soo fulaysa iyo cisyaanka aan ilaahay caasinayno iyo sida macaasida waddooyinkeenna maqaaxiyaheenna guryaheenna ilaahay loogu caasinayo daqiiqad adduunka inaan ku noolaano xaq uma yeelaneen maanta toddobiyo 20 sanaan maqlayaa buu yidhi oo laygu jawaabayaa oo layleeyahay ilaahay xajkaaga kaa aqbali maayo iska joog dee maan joogaa ka joogi maayo waan socdaa buuhi waryaa u yimiday dawaafkii buu bilaabay sacyigii markuu dhammeeyey ayaa dushiisa laga dhawaaqoo la yidhi labayka wa sacdayk waan ku aqbalnay waan kaa ajiibnay 27 hore ee xajidayna ilaahay waa kaa aqbalay baa lagu yidhi kii baa la maqashiiyey marka hore maqlaayey markaa buu yidhi sheekh waa lagu aqbalay wuxuu idhi albaabkiisa mahayna albaab kaloo garaacaynaa ma jirta buu ka yidhi ma quusanayna annagu ilaahay baan haysanaa marka ilaahay raxmaddiisa ka quusan mayno dadkana ka quusin mayno bal ummadda waan tarqiibinaynaa waan u naxariisanaynaa dacwadda ayaan ugu yeedhaynaa dacwadda markaan ummadda ugu yeedhaynana waan u dhibrinaynaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin xadiidkaas siduu ku yimiday nin caraabiya ayaa masaajidka nebiga dhexdiisa cawradiisii intuu la soo baxay ayuu masjidka nebiga dhexdiisa ku kaadiyey saxaabadu markaasay ku yaaceen markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waar ka joogsada markaabuu nebigu saxaabadii ka joojiyey markaabuu nebigu ku yidhi waar ka joogsada kaadida ha ku goynine ka joogsada halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu yidhi isagii buu nebigu markaa u yeedhay i kaalay adigu markaasuu nebigu fadhiiso ka yidhi u fadhiisiyey masaajidkan ilaahay baa leh waa meel ilaahay lagu caabudo salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu akhristaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa loogu talagale ee maaragtaane wax kale masjidka looguma talagelin isagii baa ka sheekeeyoo yidhi wallaahi ima dhibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida horuma arkin dib dambana u arki maayo wuli macallin isaga lamida ilaahow aniga iyo maxamed noo naxariiso cid kale ha noola naxariisan buu ka yidhi saxaabadiisii buu nebigu ku yidhi halkuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucithtum muyasiriin bucithtum waxaa adduunka laynii keenay oo laynii soo saaray inaad dadka xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan adduunka layniima keenin buu rasuulku yidhi bictha walaqad bacahnaa fi kulli qaryatin nadiira wamaa kunna mucadibiina xataa nabcatha rasuula
بعثة كلمة البعثة قرآن كيكوت الله والفاد إلهي سجارة مركو وتلمام النبي يدا الرياضة النبي يدا ما لو أدك سجري اجتبى اصطفى بعثة وكلمات النبي يدا خاص أوها لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابتي سيبوا كليهي إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين إن كلمة هنا أدوك اللي مسو صارين هدين اللي نسو صارينا رب العزة وحو نيسو صاري إن هذا مدى حق أرد برسان اللي مسو صارين إن هذا مدى مرقد حق أقود بين إنسان أتقوات كيسان ربعي بن عامر صحابي جليل كاها رستم مركو أتقينا وكي كوير رستم الله ابتعثنا إليكم أنك إلهي بنوكي سو صاري بوكي ورقفك مسلم كا ولا ليال مسلم وين فهمت إلهي باكو سو صاري إلهي باكو دورتي ومع إلهي كو دورتي دين تا إسلام كا إناد كو دغانتو أود براتو أود كشقيسو أود دين كو نولاتو أود دين كو نماتو أيا أدوية اللغو كيني هدف كاغونا أون نغضو إناد جنهش أنصار مرقو النبي يقول لم يبايعون يا أنصار وحو النبي يقول أنصار أي كوة بلمين بيعة العقبة مركي دعيسي يا رسول الله أنا كو قادنا النبي كو يرادين مدينة المنورة وان كل تجينا سيدا نفط يدا عدو قالوا قد دفاعنه يعني المها يقع عدو قالوا قد دفاعنه الريرها يقع عدو قالوا قد دفاعنه أيان أديقنا عدو قد دفاعنا وحنا أغنهي هدان مقالة مدينة كل تجنو عالم كود أنت كنول أيا دقال نقصو قادي دونا دفاعها إنا كودم ماننا ديار بانونا هاي دقالها يقينا إنا أديك كوكب بحينو ديار بانونا هاي ما لقيا بالنبي الله مالنتا إلى هاي دين هذا وموجيو إيه جوشة دي أي ظاهرته ما لقيا با إنا نقصو نقطو أو مكاكو نقطو مركب النبي يقول حكيا من أبو يري هل كاد كن ولاتانا وكن ولان بو النبي يقول هل كاد كد متانا وكد من هل كاد ديجين وكد داتنا وكد داتن ديجي برسول كوري يلا فيرس وبيعة إيه يدي أنصاري نبي قد أحمر سيرة كتالا الدم الهدم بنبي هل كديجين وكد داتو ديجي وكد داتن هل كقبوره إنه أي نقطة بقبره نقوم برسول كوري إن مكة كسر نقطة وطلق إنك سرعة هالصور ديجين نبود أنصاري وبلن هذا أنيق ما أنت إقادتان وصد النفتينا يؤبتينا يدمركينا عدو قد دفاع عيسان هذا عدو قد دفاع دان أنا وحني بلن قاضي يا هل كات كن نولاتنا وكن نولان هل كلا ينقو آسنا ولا يقو آسي هل كديجين وكد داتنا ديجي وكد داتن وأنا بلن بنبي يري والله بنبي وحني شيء يا ذاتك الدنيا كنوا هذا دنا عي مرام أنصارنا حقا أي مرتو ولا إلى هذا كلا دورو هل كأنصاري أي مرتان مريبو رسولكم وعيد هذا وهجاك لكن ما حد نو بلن قاضي أو كلا نو شيء وتقولي سنة يسا إلهي بقوش كوسين دونا أنا قلنا دفاع عجينا كل ما أنا ديار بانونا هي ما حد نو بلن قاضي سان نو شيء وعود الجنة ني بلن قاضي جنة محاكوين بالشيء ما أورن مدح بندقة دقيا دقالان النسينا يا ثلاثة دبضة إنك نيدي بيا ما أورن وحاو نبي يقول وحاسوا الديو ككالي وحاو نبي يقول بلن قاضينا جنة وذهلي دونا فعلا النبي يقول أنصاره ودعي صلى الله عليه وسلم غرغارك أي نبي يقول غرغارين إلهي رسولك سأوحو أهيليين دينته غرغارين أي الله يقول مقعدر الأنصار كوي إلهي النبي يقول غرغارين الله يقول مقعدر marka inakuna inaan diinteena u gargaarna la inaga rabaa maanta oo aanan oran xilka diinta culimada un baa ka mas'uula macallimiinta un baa ka mas'uula jamaacada khaasa un baa ka mas'uula may qof kasta muslim waa shahaadanaya diinta xil baa ka saaran inaad adiguna diintan islaamka aad ku dhaqantaa oo barataa waa waajib ku saaran oo ilaahay baa kugu adoonsaday inaad diintan shaqadeeda aad ka qayb qaadataa oo maalkaaga waqtigaaga dhaqaalahaaga aqligaaga cilmigaaga wixii ilaahay salaaxiyadku galiyay inaad diinta islaamka aad wax ka gashataa iyadana qiyaamaha waa lagu weydiin doonaa ogow falanas'alanna alladina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin baa ilaahay yidhi innahu ladhikrun laka
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فإن شاء الله هذا إن الدين تكشغنا وذنيود إن شاء الله سفي عنه هذا ده هذا نبدأ الصلاة الله وياه توحيدك لما دل لك أشيء ده إن شاء الله فراغ مركان هيسنو مددا أفرت بلود يا لوضع بلود يا أفرت قعيشة بيش فصحات هاي ووسائل الدعوة سيدا التعليم تبقى وسائل ولا ده هاي وسائل التعليم ومحي ومدارسته منهج كمدارس ووسائل ويان منهج كان علمي قال نقول دقنا يا متون علم المتون علم المطولات مركز بلغلي ووسائل العلم وسائل الدعوة إمك آلات كان إمك نقدو بيسان ووسائل الدعوة وأنا أقول لها يمديدنين لكن جماعة هنا بحضو أو قرية جماعة كب بحضو أو قرية دتك أي برارجيان أو مقايد دتك أي وتجان أو دتك صلاة الله وياه أو تارك صلاة قعدت الله سوقته ووسائل الدعوة بل تاسع أصل كيه ولبن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام آلات كان ما أنت نقول سنين دعوة أوكاشنا إنه هذه آلات كان دعوة كف ديسو نبي محمد بالسين لها لكن نظام كان نبي محمد إلهي أوسيي والنظام كقول نتيجة إن مركب الدين في عالم كلنا قاعد وانا نظام كي والنظام كوقف إنه الدالة إنه ها إن أدوك الداشي أديك نقالة كابحو مال كابحو وقت كابحو ديك كابحو دعان كابحو نقالة كابحو ودشيكتي هر واحد جعش هاي مركز الدين تقيمه هيجنا أذكرن ذاتك كلام الدين أذقيمه هو وشيء كريم هل قصان نقصه قابل نبا وذي إنك يسود معين وجربوا امتحان وكقاضوا يقول أبو ده لباتن جربات هاي لباتن كاسنو وحنا دعونا إنسان إلهي أنا يقوم بيسود ديبو بيل كي نسينا يه ما أنت حبا ما هيو غير كي بهدي ريد حبا ما هيانه بل وحي ريكين بوكيني ما أنت أرض يسوع حوك سوحي كان كاير وإنه هو ولي الشقة ما أركن الدنيا كما شقين هو يدي بوتوغو هو العقد ما الرباية يسيبوا ليه مثلا $10 وهو معان ويسوا صارت ويسيسي أبيه بوي مدوير سو شقيه بوسكدي أبا واكن $10 هو وين سو دعاء وكقاضي وذاك مركا غرغره دبا hortiisa dab ka baxaya bulbul markaas uu qaado isagoo arkay uu ku rido $10 bul kiyaraabo eego wax isbedel yarkii yara kuma iman hadana maalin dambe uu bal maantana abaan ku sugayaa duca qabatahay oo yadii buu tago oo bal wax yar siyo maxay $5 uu keeno aba ma sha Allah fariid waaye isagoo arkay dabkii hadana ku tuuray hadana maalin saddexaad islaantii baa tiri war lacagta bariyahan aad iga gurtaa halkeed geysaa wuxuu aba igu yiri bal ii shaqo tago waxii keeno deeyo wax shaqo ma garanay adigoo ma ka qaada markaabada de muxuu ka dhigay odaygu lacagta wallahi de inuu wax ku falay aban moodaye gargara hortiisa dab ka baxyo buu ku tuuraa markaabada war lacag la gubaanigu ma haye orada abaha u shaqo tago hay wareerinayga tag wariyaa المهم قال حابو غوريس راعي حابو ده لو سو غورا متى عبان سو راحو وسو غوري او كاني لعقتي بو سو هلي او كاني لعقتي بو في قيبه ليرو ابو وركابو دينعنا او كهيا لعقته موقتا odaygan uu eegay war maxaa jiray wuu maanto aba lacagtii horada way ka duwan tahay maanta oo kolkaana dabka ka daaday abo ومحاد وقدايا تيورا وصوني كوغوريين ما تيورا هويان كسو قاديه لكن ما انت انا سو شقيستي ما فهمتين ما ملي دين شيء قيمه سواحد قرن مركو ديق يا ديعان يا وقت او كاغلو حداد وحبا قلين ما قرنيش قيمه مركا دينتنا معان الهي نسيي الى شقديده تببركيغا u baxno وانا بينك جمعنا مركز كايمنو ومساجدنا ما شاء الله دنير بدن وخير بدن بكد داليسي معلمين علماء بدنه ان ددال كادينا دينكونا قيبتنا كقادنا ودنيود ان شاء الله ذنبنا الله ضاف ذنبك والدينتنا الله ضاف
bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan horowgaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra